kulantii waxaan wanaagsan daawadayla ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo halkaan idin ka soo tebin doono waa xarunta BDRC oo ku taala magaalada Garowe caasimadda Puntland mid kamid ah ka qaybgalayaashii barnaamijkan maanta halkaan loogu yimi oo laga hadlayo doorashada Soomaaliya ayaa hadda ila jooga barnaamijkan soo aragtaa maanta ka socday xarunta BDRC والله ما برنامج في عن رتي وهو سيف عم بينو بيانين دورشة لوضع كوني لحية تمكا جودي جاس ورتي نو بياني سيد معناها الله دورنا دورشة يقضى بضع النظام يهبك أي ولا عدونته عاد بان ولا رجلي واحد دليل سنين ما شرتها وعرفتي إن قاعد شهر صار والله واجرتي لكن سؤال شو نو بيانين معناها تي بعدين سيد قبلها آخره بعدين وين يصاب حال ان boqolkiiba 16 milyan boqolkiiba 30 marka waxa la gabdho hadii ay rag badan yihiin ay doorashada galaan macnaha raggu haday ka bataan oo dooran waayo marka waa noo biyani waxaan dhahno waxa weeye meesha gabadh doorka wiilku markuu laba reerku markii laba qof ay ka soo baxayso waa in gabdhahooda ay doorkooda iyaguna ay yeeshaan marka ma waayi karaan sida ay muuqato hadda marka way bahelayaan badan waa helayaan salaamin salaha aad iyo aad maxaa isleeda doorashada Soomaaliya noocaya ka dhici karta wallahi doorashada kulli baad dadka la doorto waqtiga macnaha 2016 sida u dhici doonto markii hadda runtii la doorto xildhibaanada la soo xulo baa ogaan kara laakiin xildhibaankaas waa xildhibaan tayala u noqdaa oo runtii dadku ku kala soo yahay dalkan wuxuu qaban karaa dad badan waxay aaminsan yihiin tan lacagta oo kale oo la yiri ninku waa inuu bixiyaa $5,000 gabadhuna $2,500 dad badan baa waxay leeyihiin lacagahaas oo kale caqabad ku noqon kartaa dadkii aqoonyahanka ay rabay inay tartamaan lacagahaas caqabad ku noqon kartaa aduma aaminsan wallahi hadani waxa weeye horta lacagtu qayb ma leh laakiin waxa muhiim ah dadka doorashadooda lacag wala heli karaa Puntland waxa weeye dadka markay qofka sharaxaya kulliba haduu ay waxa kale niyadu hayo toonku baatay shan kun dilay waa helaya laakiin waxa muhiim ah qof waliba macna dadka tayadooda la yareynaya dadka waxa doonaya iyo dadka wax doonayaan rabo meesha fudayaan waa kala baxaya gaaro 25ka 24ka meelahaas isla markaa waxa laga dalbanayaa haday madaxda isteediyadu soo gudbin waayaan aqalkii sare in qoraal loo diro oo lagaga codsanayo inay soo gudbiyaan aqalka sare oo soo magacaabaan aqalka sare waa la soo gudbinayaa guddiga loo keenayaa waxay eegayaan sidaan hore u sheegnay shuruudihii iyo nidaamkii qofka looga baahnaa haddii uu buuxiyay isaguna iyadoo lala tartamayo oo aan malaynayo madaxweyne kasta inuu ugu yaraan 2 xubnood soo magacaabi doono waxa loo gudbin doonaa baarlamaanka waa ku tartamayaan iyaga warkoodu intaas halkaas uu yahay 25ka September ilaa 10ka October waxa socon doonta xildhibaanada doorashadooda baa socon doonta haddii 13ka October la gaaro ilaa 19ka waa la hubinayaa markaas xildhibaanadii way ku dhan yihiin waxa la geynayaa xarumihii loogu talagalay oo ay doorashooyinka ka gali lahaayeen 20ka bisha October waxay ku socotaa in la dhaariyo oo xilkooda loo dhaariyo si ay shaqadooda u qabsadaan ilaa 20ka October 25ka October waxay dooranayaan afhayeenka ama se waxay dooranayaan ra'iisul baarlamaanka 30kana waxa lagu wadaa in madaxweyne Soomaaliyeed halka ka soo baxo ay doortaan golayaashaas waxaan u malaynayaa qaabka hadda ay jadwalku u yaal ama loogu talagalay inaha weeye waa laga yaabaa shaqadaas in ay wax uun dib dhacaan oo hadda waa shaqo uun la hayo oo wax kasta way iska dhici karaan laakiin ilaa iyo hadda intaan ognahay jadwalkii wax iska bedelay iyo wax dib dhaca midna ma jirto waxaan ognahay magaalooyinka ama suuqa in lagu hayo in badan la leeyahay doorashadii waxba si ka ah doorashadii dhici mayso ma aqaan dadka hadda warkaasi meeshay ka heleen iyo ilaahay ka heleen iyo meeshay ka keeneen anigu ma sheegi karo kolba anagu ma ogin ilaa iyo hadda wax iska bedelay jadwalkii iyo nidaamkii loogu talagalay doorashadu inay ku socoto waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo
dadka shaqada loo hayaa waa dadka shacabka dadka la rabo inay shaqeeyaan oo hawshaas si fudud u soo gudbiyaan ergooyinka iyo waa shacabka waxaan rabaa inaan fursadayda kaga faa'iideysto Soomaalidu waxay tiraahdaa hal boolihi nirig xalaal ma dhasho hadba waxay ku xiraan doontaa cidda noqonaysa xildhibaanka cidda dooranaysa daad keentaan erga macno leh oo tayo leh oo aqoon u leh oo ka fakari karta cidda matali doonta qofka kani inuu yahay xaamilu sawdo magaciisii iyo mustaqbalkiisii uu sito oo Soomaaliya wakiil uga yahay haddii uu qofku fahamsan yahay waxay la tahay qof macno leh waa imaanaya laakiin qofku haddii uusan taas fahamsanayn oo uu iska keeno qofkii is yiraahdo maanta ama waa baagamuudo ama meesha iyo ama maaragtay waqtiga uun ha ku soo lumiyo waxay la tahay waxa Soomaalidu tiraahdaa lowga ninkii isku dhufta isaga u dhuftiya hadhowdii annaga nama eedayn doontaan qodobka kale oo aan rabo inaan ku soo gabagabeeyo wuxuu yahay waxaa jira qoondada ergooyinka la iska rabo qoondooyin gaara jirta oo cid gaara loo qoondeeyay oo madashu ay ku soo heshiisay oo annaguna aanu rabno inaan ku shaqeyno haddii alla idmo waxaa ka mid ah 30% ergadaas inay noqoto dumar ama haween 30% markii la yiraahdo 51 waxay noqonaysaa ilaa 16 qof ama 16 ergey 16 ka ergey hadeerba weydiin sheegaynaa ciddii aan keenin waa ku celin doonaa haddayaan soo buuxin 16 ka dumarka waxa kale oo jira dhalinyarada waxay ku leeyihiin qoonda ah 10 qof 10 ka qofna waa la iska rabaa waxaan u malaynayaa iyada Jaanis baa la iska helayaayo dhalinyarada waxa lagu xadiday age-kooda ama sanadkooda 18 ilaa 35 marka cid badan oo dhalinyaro ah way soo gali doontaa waa hubaan iyada dib badan kama imaan doontaan isleeyahay inta kale waxay ka imaanayaan in ururada bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada culimaa u diinka iyo wixii un la mida waxaan leeyahay waxaan ugu celcelinayaa ergada waqtigeedii baa taagan waxyaalaha aan hadda idinka rabnana way ka mid tahay oo hadda diiwaan gelinteedu socoto waxaanuna rajaynaynaa dad macno leh oo hawsha ku habboon inaad keeni doontaan idinkoo eegaya qoondooyinka iyo sida jadwal baa jiri doona laga soo ama fooman baa jiri doona la soo buuxin doono qolo walba inteeda meel ugu qoran dumarka 16 kaas meel bay ugu calaamadsantaa guddiga doorashadu awood bay leeyihiin odayaasha dhaqanka wax badan baa la soo marsiin karaa qabiil baa khasbaya qoys hoosaa soo khasbaya nabadoonnaa soo khasbaya idinkaa laydinka rabaa dadkii Soomaali gacanta loo gelin lahaa inaad hadda shuruuda u dejisaan waxaana kulli waa idin digsan yihiin hadda ka maqlayay gudoomiyaha Sheekh Bashiir aw Ali dadka marka hore laakiin aad tiraahdaa kan munaasib ma ah Soomaali kan ma badbaadin karo taariikh badan baynu soo marnay 25 sano burbur ahayn dadkii waa la kala yaqaanaa walaalayaalow ilaahay kaga cabsan oo kontonka qof oo Puntland ka tagay dad u tagay Soomaali badbaadinteena waa inay noqdaan dad shaqo doona waa inaysan noqon siyaasadeena waxa xirmay hunguri baa loo soo doontaa iyo shaqo waa fashil ninka siyaasadda gelaya mabda waa inuu u socdaa iyo ummadda inuu badbaadiyo laakiin mushaar ka hel ama xogaa ka shuba haday tahay halka waxay dhigay way ilaahay hadda baarlamaanadeennii oo dhan fashil bay ahay anu cidna jaga kama hayo oo inaan ku sheegan jecelahay shagaan sidee waa laga qaaday waa laga riixaya ma jiro adduunka midii ilaah waa meesha wax allaale waxaan awal dooran jirnaa halka la geyn jiray fashil bay ahay waxa yar waa aragna meesha ku dameysay burbur siyaada
madaxtooyadii maanta in lagu garaacayo madaafiic bay maraysaa wax ummadaan runta sheegi kara oo ummadaan saan sax uma aha wax oran kara waa yar yihiin ilaa ay hadda walaalayaal meeshaas ummadaan maanta Soomaaliyeed badbaadin kara guddigiinaas baan anagu fiirinayna ha ka yeelin oo dhaqameedyada waxay idin keenayaan kuwii awal ay keeni jireen oo kale oo qabiil sanka laga gelin shaqo doona oo suuqii ku fashilmay oo qabiilkii ku fashilmay oo dhaqaale ku fashilmay oo dawlad maamulkeed ku fashilmay baa la keenaya suuqa taagan leeyahay xilkaas idinku idin saaran hadda inaad noo dejisaan shuruudo adag oo tiraahdaan kan Soomaali jiritaankeed uma socdo ka badan ahayn marka waa dad badan baan anaa wuxuu yiri bilqalax la warwashabiin matala anaa badan soo ma baan anaa wadan bilqalax noqonana waanu socodeen weynana 2020 kay dhogaayna wixii noolaada haday gabdhuhu dad jira leeyihiin oo diin loo iimaan loo dal loo muwaadiniin oo wax qabtana de way muuqanayaan marka sidoo codka lagu ridayo oo soddonka taagnaan mayno soddonka hadda waxaan u qaadanaynaa xalka Soomaaliyeed maslaxada Soomaaliyeed danta ummadda Soomaaliyeed kursi jacaylka ragga iyaga baan u qaadanaynaa laakiin ma istaahilo 100% waxa way Soomaalidu waxa tiraahdaa nin qab weyn iyo nin aan u quuran nin qab weyn iyo nin aan u qabin nin quud jecel iyo nin aan u quurin nin qosol badan iyo nin ma taqoosma ma heshiiyaan baa leeyahay marka qab weyninta ragga iyaga iyo kursi jacaylkooda waa qadarinaynaa 16 ka ha ka bilaabato halka aynu iska fiirino 3 xubnood beel walba ha ka soo tartanto qofkii mudan baa la qaadanaya ma aha u arkinina inay naga taagan tahay intaan dirciga gogora soo xirano dirciga gogora baxino dirciga gogora aan ugu ridno qof baan dooranayna ma dooranayna iliyasta ma dooranayna gabar ma tahay waxaan dooranaynaa waa qof yaa u qalma baan dooranayna laakiin nala fahma oo odayaashu ma hadda waxaan ognahay beela badan oo xataa ergada ma aragtay gabdhiga ku yareynaya ana xalima calbiyooda idin la hadlaya ergeyna dooni mayo xildhibaanna dooni mayo laakiin maslaxada ummadda Soomaaliyeed baan doonaya maslaxada Puntland baan doonaya waxaan doonayaa wada jirka dadkan doonaya midinka iskaashi awood leh oo soo waxay ka sii xuntahay midii odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada iyo beesha ka soo gudbi jiray oo la oran jiray iyagu ha keeneen taasay 100% ka sii xuntahay waayo dhowr awood isla lahayn oo odayaasha mid ka mid ah idinka iskala qabo midda kale waxa weeye dadku bini'aadamka ay wax u arkayaan maskaxdana wax uu ka gartaa indhaha ku gaa babaydu korba ka cagaaray hoosna waa guduud waa dhiig arrin kor ka maldahan hoosna dhiig ku da'ayo bay arrintaasi aniga inana eg tahay una muuqata ama tahayba waxa weeye guddigu hadday guddigu dadaalaan itaaqooda laakiin meesha biyuhu ku dhacayaan ay khadiban tahay waxba micnaha ay samaynaysa dadaalkooda ma jiro culimmadu hadday wacdido oo sida ilaahay yidhi iyo sida ay ku suuqan tahay ay noo sheegaan laakiin meesha arrintu tagaysa ayaa waxaa u jeedin waxba maxaan ku idhahdaa iyadanka hagaagaya waxaan marka anigu oran lahaa waa ayaal raggii maxaan ku idhahdaa arrintan soo qaabay rag wax kala iibsanayna oo garan kala leh Soomaalida garanaya oo nidaamka aanu meesha u socono iyo cadaalad darrada dadka qaar aysan waxba dooranin qaarna ma garanaysaa xaq u yeesheen dalka hoggaankiisa iyo koota ay ku haystaan waayo Puntland in yar baa wax dooranaysa inta badan wax ma dooranayso xaqna ma laha 2020 doorashada hal qof iyo hal cod ma dhacayso haddiina maanta mas-uuliyaddaas ina gudan oona xilkaa qaadin guddigu waxaan rabnaa in aan isbaranno isma naqaan isbaritaankii waxay la tahay ka jawaabnay waxaa kaloo ku xigay xildhibaanada shuruudahooda inaan helno iyaguna waa diyaar waxaan u malaynayaa website-yo loo sameeyey baa jira website-yadana way siin doonaa si aad ula socotaan oo dadka miidiyaha adeegsada ama qalabkan warbaahinta adeegsada shuruudaha kalena waxaa ka mid ah maalan ergeygan qofka ka mid noqonaya
shuruudihiisa waxay noqonayaan inuu Soomaali yahay in dimirkiisa ama maskaxdiisa ay fayowdahay oo qof ma garanaysaa uu yahay dimirkiisu dhan yahay waxaa ka mid ah in da'diisu aanay ka yarayn 18 sano waxaa ka mid ah in uusan musharax u ahayn labada aqal ee golayaasha sida aqalka hoose iyo aqalka sare in uu fahansan yahay mas'uuliyadda doorashada waxaa ka mid ah in aysan maxkamadii hore ugu xukumin faldambiyeed culus 5 sano la soo dhaafay waxaa ka mid ah in uusan hayn qofkaasi xil siyaasadeed xilligaas waa ergeygii baan ka hadlaya waxaa ka mid ah qofkaas ergeyga noqonaya in uusan xiriir la lahayn ururada xag jirka shuruudaha loo magacaabay ama loo dejiyey hubinta ka mid noqonaysa baarlamaanka federaalka ama golaha shacabka ee Soomaaliyeed waxaa ka mid ah inuu yahay muwaadin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa inuu Soomaaliya sidoo kale dimirkiisu waa inuu dhan yahay da'diisa kii hore waxay ahayd 18 qofkan damo xildhibaanka noqonaya ama MP-ga noqonaya waa inayan ka yarayn da'diisu 25 sano xuquuqdiisa maxkamadda waa inayan horay u laalin sidii aan hadda sheegaynay ama maxkamadda go'aan uga gaarin 5 sano u dhameysay yacnaa faldambiyeed uu galay dartiis inaan maxkamadii ku xukumin xukun maxkamadeed inuusan ku dhicin oo faldambiyeed la xiriira inuu haysto waxbarasho ugu yaraan dugsi sare ama secondary level waa inuu yahay waa la iskaga daraa ama waayo aragnimo u dhiganta oo la xaqiijiyey hay'adaha yacnaha ku shaqada leh documents baa hadhowdii imaan doona meel kale waxaa lagu qorayay 12 sano waayo aragnimadaasi waa inayan ka yarayn waana inay soo xaqiijiyeen cid lagu kalsoon yahay ama ha noqoto wasaaradda dawliya ama ha noqoto hay'ado ama ha noqoto sharaa'ic ganacsi oo muhiima qofka waayo aragnimadiisa documentskeeda halkaas loo raaci doona halkan waxay la taagan luul oo iyadoo ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Garowe caasimadda Puntland bal waxaan wax ka weydiin doonaa sida uu aragto doorashada Soomaaliya la filayo sanadkan 2016 in ka dhacdo luul waxaad ku soo dhawaataa Jubaland Jubaland TV aad baan ugu faraxsanahay la kulankiina waana dhawaa maanta kulan baa ka dhacay xabta midkaasi sida uu aragto doorashada Soomaaliya inay ka dhacdo inkastoo sidii aan u rabnay aysan wax u soconin oo aan rabnay maanta doorasho qof iyo cod ah inay dhacdo la sawaayay hadda waxa la sidii loo jabay baa loo dhutiyaa doorashada Soomaaliya waxaan ka rajaynayaa wax fiican inay ka soo baxaan kulay hadda ifafaalo fiican baa muuqda halkan waxaan noo jooga guddigii heer Puntland oo iyaguna ka hadlaya doorashada iyo qaababkeeda waxay leeyihiin 16 qof oo gabdhaaba Puntland gabdhaheeda laga rabaa 10 dhalinyaro baa la rabaa iyo 51 qof baa la leeyahay iyo 25 kale oo ganacsato iyo culimada iyo bulshada rayidka isugu jira qaabkii hadda u wadaan waa wax fiican haddii aysan wax kale iyo madmadow kale soo bixi doonin ilaa hadda waa okay dhinaca gabdhaha markaynu ku eegno 16 gabdhaha ah marka soo bixi karaan baslada Puntland adoo qiimeynaya sida dhaqanku wax ku wadaan run ahaantii horta way jiraan gabdho badan oo ka bixi kara way jiraan dhaqankuna hadda iyagu wali horta siyaasadda Puntland siyaasadda Soomaaliya iyo tan dhaqanku way isku lifaaqan tahay oo inta badan meelo badan bay isaga egtahay kulligeed oo dhan marka la isku wada darana waxay u egtahay geedka jeerinka la yiraahdo waa uu ballaaray in laga mana boodi karo laga mana dusi karo saasay horta u egtahay caqabado badan iyo maartay hor istaag badanna way leedahay laakiin waxaan hubaa horta anigu musharax maahi laakiin gabar kasta oo musharaxa waan soo dhaweynayaa taasoon waliba wixii Ilaahay u soo dirsado
waddankan u keenay oo ay raaciyada ka ahayd ay aan dayacaynin oo maanta fursad u haysata inay dalka ka qayb gasho gabdhaha waddanku waa u baahan yahay kuwa waxa weeye qaaraamaya kuwa waxa weeye dawladda taageeraya kuwa waxa weeye maalin walba qorraxda u taagan in dalka iyo dadku wax noqdaan aad iyo aad anigu waan isleeyahay haddii aan debi xiran danti furayn gabdhuhu aad iyo aad ba uga qayb gali karaan waana soo bixi karaan 16 ka badan baana ka heli karaan insha Allah guddigu wuxuu u soo saaray sidii macnaha wax u qornaayeen buu soo saaray laakiin waxa la isku haystaa waxay tahay dumarka waxa la yiraahdaa hadii doorashadu ay konton iyo kowda ay macnaha ay la dooran waayo gabadha maxaa macnaha ka dambeynaya marka konton iyo kowga la iskuma haysto laakiin fikirkan ku duugan oo ah gabar inay soo saari waayaan oo ama ay gabadha u qalanta anu dhiimay gabar kasta la soo saaro in gabdhaha markii wadanku uu nabad iyo ama dhibaato jirtana gabdhaha inay codkoodii wax qabadkoodii waxooda la rabo marka ay siyaasadda iyo doorkii ay fikir ka dhiiban lahaayeen laga bahalkayo hadii la hayo nin very active oo ilaa awal dhowr jeer baarlamaanka la fariistay baarlamaanka ragyadii loo dirsaday maxay ka keeneen laakiin hadii maanta oo maalintii horna gabdhihii la diiday waliba Puntland baan gaar ahaan anigu aan shaashada saaraya mar walba gabdhaha waa ka soo horjeedaan hadii ay gabdhihii maanta oo codkoodii iyo waxoodii lahaan lahaa ay lagu iibsado rag aan hadhowt waxba aan dalkii dadka u soo gudbin karinin gabdhihii hadda doorkii ay ka rabi jireen wax badan baa soo banaanaanaysa mid kale waa in gabadha iyo wiilku dadku waa u sameeyeen waalidku waa u sameeyeen sida suldaamada iyo iyaguna waxay ka mid yihiin aabayaashii bay ka mid yihiin waa inay hadda doorashada inta badan odayaashu waa ka madax bannaan tahay konton iyo koob waa dooranaya marka wax ololaayo aad samaysay ilaa hadda ma jirtaa oo runtii konton iyo koob lama yaqaano koox siday intay dadkay noqon doonaan lama yaqaano laakiin konton iyo koobgaas odayaasha laftigooda waxaa la rabaa inay ku wacyigeliyaan annaga gabar iyo wiil waxaa noo daran qofkii wax qabad leh baa noo daran waa inay odayaasha ku wacyigeliyaan ayna dhahaan waa inaa ka madax bannaanaataan wax la yiraahdo maxaa la yiraahdaa corruption ka madax bannaanaad marka hadii la yiraahdo war adinku waxaad eegtaan qofkaani waxa uu soo gudbiyo oo CVgiis ku soo gudbiyo ama uu presentationkiis ku soo gudbiyo ku qiyaasa ama ku qaata hadii la dhaho waxaan aaminsanahay gabdhuhu inay soo baxayaan adigu maxay kugu dhaliyeen inaad xildhibaan isku sharaxdo ani waxa igu dhaliyay waxay tahay horta dalka waa la wada leeyahay talada dalkana waa leeyahay maadaama muddo aan ku jiray anigu siyaasadda wadanka aan ku jiray oo aan maxaa la yiraahdaa aan u ololeynay wadanka Soomaaliya inuu nabad iyo horumar gaaro waxa igu dhaliyay fikirkan igu duugan in anigu maanta qaybteeda ka qaato oo ah waliba tan ugu daran waxay tahay anigu oo aan u ololeynaa waxay tahay dhalinyarada soo koraysa lagama fakaro marka si dhalinyaradaas ay waxbarasho fiican u helaan si dhalinyaradaas ay ugu dhiiradaan inay wadankooda joogaan aanay tahriib u gelin ayaa way waxa ugu badan aniga igu dhalisay oo ah baahiyo ka timid waxaan ku wareegaa wadamadan ku wareegaa ay dhalinyaradu joogto wax ku barbartaan cunug walbaaba hami uma hayo dalka inuu u soo noqdo marka kulankan oo kale hadda maanta ka socda Garowe laga furay sida u aragtaa ani kulan fiican aan u arkaa leena waxaan ugu arkaa waxay tahay waa maal dadku afkaartooda iyo fikirkooda ay isku weedaarsanayaan ayna ka ogaanayaan qof walba fikirka uu qabana la ogaanayo qofka kastana uu madax bannaan yahay inuu aragtidiisa dhiibto marka waxaan dareemayaa waa fikir Puntland ku soo biirtay ah in BDRC-na aad baan ugu mahad celinayaa maadaama ay dadka afkaartooda iyo fikirkooda isweydaarsanayaan waxaan aaminsanahay inay wax badan oo wanaagsan ay soo bixi doonaan muhiimna ma ahan waxaan waa qadar qofkii ilaahay u qoraa meesha tagaya laakiin muhiimaddu waxay tahay inaanu ka sii fakarno Puntland ama Soomaaliya waryaa dalka iyo dadka matali kara waryaa wax u qaban kara laakiin aynaan ka fakarin waryaa jeebka u buuxa waryaa laaluush wata waryaa digdigla ayaynaan u fiirin ummadda Soomaaliyeed waxay inooga baahan tahay iyo Soomaali meel kasta oo joogto waxay inooga baahan tahay hiiladaasna waa inaan u wada galaa anu hadda muhiim ma aha gabar inay hesho wiil inuu helo waxa cali faarax waxa tahay agaasimaha hay'adda cilmi baarista ee Puntland BDRC maanta kulan balaaran baa waxa ka socda xaruntan aynu joogno marka ugu horeysa maxaad ugu tala gasheen kulanka fikradda tan horta runtii waxa isla helay oo isla xuliyay guddiga doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed heer Puntland iyo xarunta cilmi baarista iyo horumarinta Puntland BDRC waxa weeyaan markii la ogaaday in ay jiraan warar iskhilaafsan oo ku saabsan
doorashooyinka dadban oo la rabo in laga qabto 2016 Soomaaliya in markii la ogaaday Soomaaliya waaci ahayn ama la socon habka iyo nidaamka iyo habraaca doorashada ayaa waxaan isla garanay in la kulansiiyo bulshada qaybaheedii kala duwanaa maamulka laftiisa uu ku jiro iyo guddigii ay sarkaan marka halkaas ay noqoto xog waran iyo iftiimin habraaca iyo nidaamka doorashooyinka waxaan u maleynayaa waad aragteen dadka ka soo qayb galay waa nuucdii ummadda reer Puntland dadkii fariinta saxda ah qaadi lahaa oo ku celin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa kamid ah waxa kamid ah nabadoonadii culamaa diinkii aqoon-yahankii waxa kale oo kamid ah dhalinyaradii haweenkii aaraa badan baa la isku weydaarsanaya fikrado badan baa la isku sheegay fikrado la soo jeedinaya laga yaabaa waxyaalo badan oo isbedel u baahan oo ama ha ahaadeen khaladaad ama ha ahaadeen waxyaalaha aan markii wadaarato aan laga sii fikirin in halkan laga soo jeediyo ra'yi cusub in laga curiyo xataa ayaa suuragal ah waana muuqataa meelaha qaarkood hadda waxyaalaha la isku hayo oo waliba u badan arinta soo xulista xubnaha waxa kale oo ka dhacay dardaaran guddiga laftiisa la dardaarmay mas'uuliyadda la saaray iyo culayska ay leedahay oo lagu dardaarmay xaq diineed iyo xaq dhaqan iyo xaq bani'aadamnimo ayaa ka yimid marka soo xulistaasi habka soo xulista iyo guddigu inuu kalsooni ka haysto bulshada lafteeda wax caqabado ay dadku ay ka hadlayeen ma jirtaa ilaa hadda aad iftiimin kartid way jiraan caqabado badan baa jira oo dadku ay ka hadlayaan hadda shirku weli ma uusan dhammaan waa uu socdaa waxa ka mid ah sidee loo xaqiijinayaa oo kaleeto in bulshada qaybaheeda kala duwan dadkan 31 oo ka kooban iyo muxuu ahaayay maxaan ku yiraahdaa waxyaalaha ay looga baahan yahay shuruudaha looga baahan yahay maxay yihiin in lagu soo xuleeyaa sidee lagu xaqiijinayaa qaybaha kala duwan qayb walba in inteedii loogu talagalay inay hesho sida mesela haweenka oo kaleeto iyo baalkii sidee loo xaqiijinayaa yani way jiraan su'aalo badan waxa weeyaan maxaa guddigan iyo laftiisu damaanad intee leeg buu haystaa in uu arrimihiisa u madax bannaan yahay si cadaalad ku wadayo maxaan ku yiraahdaa waajibaadkiisa uu godanayo sidii baalkii يعني وحيالها دردارنكا u baahan yahay oo qaarkood dardaaran balse qaarna waxa weeyaan boorin bay ahayd lagu boorinayay gudiga lagu boorinayay aaraa fara badan baa ka soo baxday ra'yo badan baa ka soo baxday intaynu hadda kulan ku dhex jirnay waxa muuqanaysa dadku inay aad u danaynayaan barnaamijkan uu horay u soo socdo laga yaabaa marka inaad doodahan oo kale aad sii badisaan oo dadka aad la sii qaybsataan inta aan maanta joogin iyo inta kale oo magaalada xaruntu waa madal dhexdhexaada waa ilaa iyo maalintii markii la asaasay maanta ilaa iyo 18 sano ay jirtay waxay ahayd inay isdareensiiso qaybaha kala duwan ee bulshada maamulada iyo hay'adaheeda u dhisan in ay wada hadlaan in ay wax isla meel dhigaan in ay isla fahmaan arrimaha danta guud oo ummadda waxa weeyaan ma joojinayno waa wadaynaa hadba sidii ay waxay ku yimaadaan birwadeena waxaanu kale too sameyn doonaa haddii lahay idmo in aan idaacadaha iyo ka baahino maxaa fariimaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sida ay ugu habboon tahay oo maartay la rabo in loo fuliyo waa wadaynaa joojin mayno ilaahidankiis meesha madashuna hadda waa madal muxuu ahaayey meel dhexdhexaad ummadda u ahoo cid walbiba ay ra'yigeeda si xora inay ugu dhiibanayso iyadoo aan muxuu ahaayey layskuna eedeynayn layskuna aflagaadheynayn madaxa hay'adda cilmi baarista ee Puntland Cali Faarax oo halkan igu waramayay anigu Axmed Cabdi Jaamac ayaa barnaamijkan idin soo jeedinayay barnaamijkan intii gadaal laga soo biidhay haddii aan u sheego waxa uu ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo maanta dood ku saabsan arrimahaasi magaalada Garowe caasimadda Puntland lagu qabtay hay'adda cilmi baarista Puntland ee BDRC ayaa kulankaasi soo qaban qaabisay waxaana goobjoog ka ahaa guddiga heer maamul goboleed ee doorashooyinka Soomaaliya barnaamijkii guud ahaan waa naga intaas